magaalada Buuhoodle waxaa maanta soo gaaray ciidamo ka mid ah ururka lixaad ee Guulwade ee ciidamada daraawiishta Puntland oo ka koobnaa 300 oo askari kuwaas oo muddo 7 bilood tababar ugu socday xerada General Carays ee godad ee magaalada Gaalkacyo. Ciidamadan ayaa lagu adkeyn doonaa ammaanka magaalada iyo difaaca xuduudaha gobolka Cayn, waxaana ciidamadan safarka ku weheliyay xildhibaan Axmed Xariir Gaas, wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guryeynta Khadar Faarax, wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Mustafa Cabdi Fataax iyo barasaabka gobolka Cayn Cabdi Fataax Ciise. bulshaweynta Buuhoodle ay ugu horeeyaan ismada cuqaasha waxgaradka saraakiisha ciidamada ururada haweenka iyo bahda caafimaadka ayaa kaga hortagay duleedka bari ee magaalada Buuhoodle. Allah maanta inoo suurtageliyay suunaatinkan munaasabadan taariikhiga ah taariikhda u leh dhammaan bulshada gobolka Cayn iyo degmada Buuhoodle aan ku soo dhaweynayno ciidamada daraawiishta ururka lixaad tababar ku soo dhamaystay xarunta tababarka Gudadle dugsiga tababarka Gudadle gobolka Mirig. ciidamadan iyo saraakiisha hogaaminaysa xildhibaanada barasaabka iyo wasiirada horkacaya waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Buuhoodle. gaar halkan ugu hambalyeynaya ciidankan maanta inoo soo qalin jabiyay ee ah ururkii lixaad ee la yiraahdo Guulwade magaciisa ee xerada tababarka ama dugsiga tababarka Godad ka soo baxay oo ah ciidan in badan naawileynay. ciidankaas waa ciidankan in badan naawileynay waa rajadii gobolkan. waxaanu ka doonaynaa wax fara badan oo ka rajaynaa inay wax badan ka qaban doonaan gobolkan amnigiisa. waxaanu rajaynaynaa inay ku dayan doonaan ciidamada cusub ee hadda la xareynayo. isagana waxaanu ka rabnaa ururkan inuu ku daydo ciidankii ka horreeyay booliska. ciidankaas iyo waqtiga ballaaranba waa soo dhawaynaynaa. boqolkiiba boqol waa ku faraxsannahay. waad aragtaa shucuubta dadka iyo baahida loo qabo iyo sida loo soo bannaan baxay. ciidankaas sida roobkaadaan u saamaalinaynay oo u sugaynay. ciidankii ka horreeyay ee booliska ee loo soo tababaray gobolkan ee yimi wax wanaagsan buu qabtay. waxaanu qiraynaa haddii aanu nahay odayaashii dhaqanka inay wax badan naga furteen oo xil ah oo aanu haynay iyo wax badan oo culays ah. ciidankan dafcadiisa labaad ee noo soo tababaray ee noo timina waa ku faraxsannahay. waa soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol baanu soo dhawaynaynaa sida roobkaanu u sugaynay. ciidankaas waad arkaysaan waxaanu filaynaa inay wax wacan qabanayaan inay nabadgelyada qabanayaan. salaan kadib ciidanka aynu sugaynay cusub ee tababarka soo qaatay ee aynu sugaynay baanu soo dhawaynaynaa. waa dadkii lagu tabcayey. ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo kuwa tayo leh oo nacafaca oo haddii ciidankeeda leeyahay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya. boqolkiiba 80 ay isku filan yihiin. intaa ka dhiman hadda la qaadi doono si ay uga qayb noqdaan ciidamada difaaca gobolka Cayn. markaanu ciidankan qaadaynay ee ciidankan tababarkaan u diraynay ayaanu tiknikada uruurinaynay. dad badanna waxaa leeyahay rag iyo tiknikada kala reeba rag iyo tiknikada kala reebo waa raggii lahaa tiknikadani. maanta waxaan qiraynaa inay hubkaa ay wataan ilaa qoriga weyn ilaa ka weyn ay maanta furfurkiisa iyo cilad bixintiisaba ay qayb ka noqdeen wax badan ay ka barteen ragguna tiknikadaas ugu soo tababartay. ilaahay maadaama maanta la joogaa waxaan u mahadcelinaynaa raggii nagu taageeray in ciidankani maanta soo baxo ee qurbajoogta lahaa ee tiknikadan qayb ku lahaa ee ganacsatada lahaa ee nafangaranaysay ee mas-uuliyiinta lahaa ee xildhibaanada lahaa oo u dhabar adeegay. rag haddaan u dhaqaaqan hawshaan la dhaqaaqday aad baan ugu mahadcelinayaa raggiina garab galay markaan wax ururinay iyadoo dad badan ay lahaayeen waxaan suurtoobi mayso. guddida booliska ciidamada labaad mar labaad baan ugu mahadcelinayaa. Buuhoodle iyo Cayn waxaa looga baahan yahay dowladnimada inta ku dhiman inay ka qayb qaataan oo ugu horraysa cashuurta. haddaan cashuur la helin haddaan weligan la biili maayo oo weligan laska soo wadi maayo. gobollada kale ee Puntland si iskugu filayn waxaanu ballan qaadnay aniga saraakiisha iyo xildhibaanada wasiirku gobolkan inuu isku filaanayo cashuur ahaan nidaam ahaan dowladnimo ahaan. reer Buuhoodle guud ahaan gobolka Cayn waxaan ka codsanaynaa meeshan lahaansho siyaasadeed bay rabtaa jeclo dowladeed bay rabtaa mid mustaqbal bay rabtaa. gobolkan way maalgashatay si wacan bayna u maalgashatay wixii qaybo ee kala duwan waa la ballan qaad. xukuumad 3 sano iyo bar jirta oo tayeenta ciidamada iyo taakuleenta gobol wadda lama arag. dowladda Puntland ayaa mahaddaas kale iyo madaxweynaha dowladda Puntland iyo shacabka reer Buuhoodle runtii aad ula shaqeeyay ciidanka. runtii ciidankani ma aha ciidan loo samaystay in deegaamo kale lagu weeraro in meelo kale lagu farfareeyo. waxaan ugu baaqaynaa walaalaha deriska oo shacab kale
in ciidankani uusan ciidan duulaan ku ahayn maamulka somalilan waxaa ugu baaqaynaa in uusan ciidankani uusan ku socon meel aan deegaanka ahayn inuusan ku socon in nabadgelyada ay ilaaliyaan oo ay ka daayaan farfaraynta ay gobolka ku hayaan annagu uma soconno qurluudna uma soconno caynamana uma soconno gobolka xuduudihiisa ayuu gobolkani ku socdaa oo ilaalinaya intaasna waa iga baaq weeye runtii maanta waxaan taagannahay haddaan reer caymeed nahay waddadii isku tashiga iyo iskaashiga iyo wax wada qabsiga aynu cagta saaray waxaan leeyahay waynu ka gudubnay waddadii halkan ka qadee fadlan ku shubo foofoo soo hoyo waan ka midownay maanta waxaan qaadnay waddadii isku tashiga iyo iskaashigaan qaadnay geela marka la waraabinaya waxaa loogu heesaa ninna dhuunuu kuugu dhaadhacay ninna dhalashuu kuugu dhabargoday runtii puntland waxa ay gobolkan ka qabatay waa wax muuqda waa waxaan u baahnayn in markhaati loo raadiyo mas-uuliyiinta gobolka ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta dowladda puntland khadar faarax oo wafdigani hogaaminayey hadceliyo maanta waxay sharaf ku lahaayeen oo waxay mudnaayeen in bilado sharaf la siiyo laakiin maysan dhicin runtii oo weli innagoo dhan baa qabyaa hawsheenna waxaan rajaynayaa inay halkaa ka sii socoto weli maysan dhammaanin ciidamada fayskii labaad haddii ilaahay ka dhigo baa la qaadayaa insha allah taasina waa sii soconaysaa mar labaad runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka puntland oo sidii asxaabtii iga horraysay ay ugu mahadceliyeen aynu wada ognahay runtii wuxuu ina ka mudan yahay iyo wuxuu inoo qabtay iyo wuxuu ina taray baa laga hadlay xaaladiisa gobolka cayn wax badan baa laga hadlay xaaladiisa insha allah waxaan rajaynaynaa maamulku inuu gobolka magaalada buuhood la dhaafo gobolka cayn inuu wada gaadho cashuurtu waxa weeye ay soo wada xarooto xuduudihiisa la wada xidho ciidanku runtii waxa weeye intana way ka soo badanayaan wayna soconayaan insha allah shaqo wacanna way qabanayaan